Soomaaliye goormaynu caqli yeelanayna ilaa dilkan iyo dhiigan aynu daadinayno ilaa goormaynu wadayna alla miyaynan ka cabsanaynin subxaanahu wa tacaala ilaahay miyaynan ka xishoonaynin diinta iyo iimaanka iyo islaamnimada aynu sheeganayna haysanee ku dhalanee goormaynu ku dhaqmayna oo waxaan joojinaynaa ilaahay maxaynu isugu taagaynaa uga cadhaysiinaynaa maxaynu ka filanaynaa alle xaggii subxaanahu wa tacaala waxaan maanta ka cabanayno wax ka daran baan halis ugu jirnaa inay nagu dhacdo goormaynu dhiigan daadanayeen faraha ugu badan ay u dhammaato waa laba qodob waa ugu badan waa qodobka koowaad ama waa saddex qodob qodobka koowaad manaasib niman kuraasi ku hardamaya oo dadka xaabo ka dhiganaya oo dadka ku shubaya islaamo masaakiina caruura ay korsadeen laga yaabo agooma inay ku koriyeen oo suuqa ku korisay silsilaca ay ku soo korisay waa nin siyaasi xaabo ka dhiganayaayo mid kale isagoo kursi kula dagaalamaya markaasay toban u leedayaan oo loo laynaya الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أصلح النية والعمل وذرية اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا الجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء اللهم صل على محمد بلنكين وحوها مانتا إنينو كهذا الله موضوع بشنا إنو كتشرنو إلا يراهدو شهر الله المحرم dhibaatooyinka iyo khasaaraha dhacaya Soomaali dhibta haysata iyo mushkiladan iyadoo ay gacmaheeda ku keensanayso daraadeed mowduuci waxa ii muuqatay inaan dib u dhigo oo uu ka muhiimsan yahay bal habeen dambe oo kale aan ka dhigo maadaama aan qadarta iyo waxa dhacaya aanan ogeyn aan xalay diyaariyay oo ku tala galay maanta waan bedelay markii duhurka kadib waxaan isiri mowduucan kale ka muhiimsan dhiigan daadanaya bal in dadka lagala hadlo in badanna waa lagala hadlay xurmatu damil muslim qofka muslimka ah dhiigiisu xurmu leeyahay mushkilad baa ummadda Soomaaliyeed haysata muddo aad u dheer oo runtii rubuc qarni ka badan haddii aan nus qarni ku dhadhaweyn bay dhiigoodii daadinayaan واسبابينيان واسبركعنيان واسقحنيان واساغومينيان قبائل قبيل بي سجودوليان وحويان انت سو قيس با اغومن نقونيسا انت سو دمر عرمل نقونيا ابيالي هويوين بدن بلغا اوهينيا يو برورانيا ان خساروين فربدن نف يا مال بله baa la isu geysanayaa oo dhibaatadaasi waa taagantay waxaan niyadeena iyo qalbigeena xanuunka badan ku riday runtii waa dhacdooyinkaas way u dambeysay maalmahan wixii dhacayay waad arkayseen koonfurta Soomaaliya meelo ka mid ah wixii maanta deegaanka ka dhacay waxaas oo dhan aad arkayseen waa wax qofka muslimka ay ka calool xumaanay war dadkani goormay dhiigan joojinayaan ay faraha kula jiraan goormay isdilkan iyo raxim goyskan joojinayaan waa mushkilad aad u weyn culimada wax garadka cid kasta oo muslima oo arintaasi damqayso ilaa maalintii waxaasi bilowdeen ilaa maanta waa laga hadlay waa wax 40 sanadood ka badan inta laga hadlay dadku sida uu ku socdo maalinba maalinta ka dambaysa waa laga sii darayaa wax la isu reebayaa ma jiraan dhalasha lama xeerinayo dirisnimo lama xeerinayo Soomaalinimo lama xeerinayo islaamnimo lama xeerinayo xididnimo lama xeerinayo insaanku waxbuu isu xeeriyaa wax alla wax la isu xeerinayaa ma jirto war maxaa diiday
gacan ku dhiigluhu waa qof iyo laba iyo saddex haddii uu qofku gacan ku dhiig leeyahay qof cirka ka soo dhacay ma jiro qof waliba reer buu ka dhashaa reer qof ka dhashay ama dhowr qof oo reer ka dhalatay haddii ay dad kaloo muslim oo walaalahooda ku gardaroodaan oo dulmiyaan oo dhiiggooda daadiyaan maxaa diidaya in gacan ku dhiiglihii la doonto la soo qabto la qisaaskiisa iyo arrimihiisa laga wada hadlo maxay bi'iyeen dadkan la baabi'inayo ma waxbay kaa dileen dadku ma dhibaatay kuu geysteen maxaa u dilaysaa yaa ku xalaaleeyay dhiiggooda yani waa mushkilad cadiima ina haysata markaasaynu waxyaalo kale ka cabanaynaa dowlad la'aan dowlad xumo musuq maasuq yani dhaqaale shaqo la'aan xanuuno waxyaalaynu ka cabanaynaa innagii baa halaagii ugu darnaa gacmaheenna kula jirna ilaahay baynu la dagaalamaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ummaddiisii baynu marinaynaa oonu isbaabi'inaynaa war see ku liibaanaynaa see meel ku gaaraynaa waa arrin la yaab la wey runtii qofka muslimka ahi qofka kale ee muslimka ahi wuxuu u yahay sida dhiska oo kale gidaarkaad arkayso dhismaha ah ciiddu keligeed wax ma dhisi karto laakiin marka inta shay uu ka kooban yahay la isu geeyo waxa meeshii ka soo baxaya dhismo qurux badan baa ka soo baxaya barkii barka kale uu adkaynayo dadka muslimiinta ee walaalaha ah ummadda Soomaaliyeed marka laga hadlayo waa dad wada dhashay waa wada xidid waa wada xigaal waa walaalo waa ehel waa deris waa gacal dadkan saa isu baabi'inaya Soomaalida gees ilaa gees waxa ka taagan waxaasaa isu hor fadhiya isbaabi'inaya wax la xeerinaya ma jiraan oo bani aadamka insaanka u xeeriyo war jir kaliya saasaa la rabaa inaad isugu naxariisataan oo isugu tudhaan oo la isu jeclaado dhiigga qofka muslimka in la daadiya waa xaaraan ilaahay dembiyada laga galo saddex dembi baa ugu weyn dembi ilaahay laga gala dembiga ugu weyni waa gaalnimo dembiga labaad ee bani aadam ilaahay uu ka galo arlada dusheeda ee ugu weyni waa in qof muslima dhiiggiisa xaq darro aad ku daadiso dembiga saddexaad ee qofku galo ee ugu weyn ilaahay agtii waa inuu qofku zinaysto oo zino iyo maxaan ku idhaha faaxisho uu qofku la yimaado allah subxaanahu watacaala qur'aanka kariimka aad buu uga warray ibnu kathiir tafsiirkiisa raximahu llahu tacaala suuratu nisaa aayadda 39 ilaahay markuu yidhi subxaanahu watacaala waman yaqtul mu'minan qofka qof mu'mina dila mutacamidan ula kac iyo kas iyo badheedh u dila fajazaauhu abaalmarkiisu jahannamo wey khaalidan fiiha jahannamo wuu ku waarayaa gudaheeda waa labo waqadiba allaahu calayhi waa saddex alle waa u cadhooday walacanahu alle wuu nacdalay waa afar waacadda lahu cadaaban cadiima ilaahay cadaab weyn buu u diyaariyey ilaahay cadaab aada u weyn ayuu u diyaariyey wuxuu oran jiray nin sheekho masri oo dhintay oo cabdilxamiid alkishki la oran jiray baa wuxuu oran jiray waxaan aada ula yaabay buuri aayadatan 5 qodob oo ciqaaba alla ku sheegay afar markuu ilaahay sheegay buu markii shanaad wuxuu alla yidhi cadaab weyn baa ilaahay u diyaariyey kaa cadaabka u haray ee ilaahay u diyaariyey baan la yaabanahay ee kasii cajabsan ابن كثير رحمه الله وحوليه لما بين تعالى حكم القتل الخطأ إلهي مركو عديي حكم كدلك جفك شرع في بيان حكم القتل العمد وحو إلهي قد قال إنه كور رموه حكم كدلك بريرك أدتك وحلود له مركاسو آيات كينية في سورة الفرقان سدحية طبنت المعموط ba ilaahay ku sheegay dadka la yiraahdo cibaadu rahmaan inay leeyihiin waxa kamida walladina la yad'uuna ma'a allahi ilahan aakhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq wala yaznuun wa saddex dambiye ugu weyn cibaadu rahmaan waa kuwe ilaahay cidaan ahayn macaabida nafna xaq darrakum dilaan mana zinaystaan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala markale alla wuxuu leeyahay qul ta'alu
atlu maa xarama rabbukum calaykum warkaalaya bal dushiinna aan ku akhriyo oo idiin sheego oo idinku waaniyo ilaahay wuxuu idinka xarimay oo muxuu yahay shaygaas allaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay inaydinaan cibaadadiisa cidna ku ladhin oo aydinaan cidna la wadaajin ilaahay markuu waday muxuu xagga dambe ka yidhi walaa taqtuluu nnafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq ha dilina nafta ilaahay dilkeeda uu xarimay xaq in lagu dilaya mooyaane daalikum wasaakum bihi lacallakum tacqiluun arrinkaasaa ilaahay idinkula dardaarmaya bal inaad caqli yeelataan buu alla leeyahy fi suurati alancaam axaadiista nabiga sal alla alayh wasalam dilka qof muslima xaqdarre lagu dilo waa min akbari alkabaa'iri almuhlika waa dembiyada waaweyn ee wax halaaga weeyaan xadiiska abu hurayra ijtanibuu sabca almuubiqaat warooydadow ka fogaada 7 shay ee wax halaaga qaaluu yaa rasuula allahi wamaa hunna maxay yihiin rasuulka ilaahayo qaala ashirku billaah waa ilaahay oo shirki loo sameeyey qodobka labaad waa asixru waa falka wa qatlu nnafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq naf ilaahay xarimay dilkeedu xaqdarre lagu dilo weeye wa aklu riba ribadoo la cuno weeye dembiyada waaweyn wa aklu maali lyatiim yatiimka maalkiisoo la cuno weeye wa tawallii yowma azaxf waa in qofku uu haddii alla idmaayo maalinta laysu soo siqayo ee jihaadka iyo dagaalka lagu jiro uu u dhabarjeediyo duulaankoo cararo waqadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat iyo xumaan in lagu sheego oo xuman lagu gano haweenka wan wanaagsan ee muuminaadka ah ee xumahaba ilowsan in xumaan lagu sheego qofka muslimka ah dhiiggiisa iyo naftiisu kacbada aad aragteen qiblatu lmuslimiin waxaa ka sharaf badan oo ka xurmo badan qofka muslimka dhiiggiisa xadiiska ibni cabbaas wuxuu leeyahay nadara rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam ila alkacba maalin baa rasuulku isagoo kacbada tawaafay ayuu kacbadii sidaa u eegay markaasuu wuxuu yidhi maa acdama xurmataki kacboy kacbadu markaa rasuulku la hadlaya xurmadaadu weyna ilaahay uu ku xurmeeyey subxaanahu wa tacaala riwaayad kale waxay tidhaahdaa markuu eegay rasuulku kacbada marxaban bika min beytin soo dhowow beytkii iyo kacbadii iyo gurigii ilaahayow maa acdamaki alla weynida maxaa kaa weynaansho badan wa acdama xurmatak xurmadaadu weynaan badana wala almu'minu qofka mu'minkase baa acdamu xurmatan cinda allaahi minka ilaahay agtii qofka mu'minkaabaa kaa xurmo weyn adiga